waxaan aan ka soo baxnay saad ogsoontihiin baa maanta haddana isaan u fadhiisana saakayto markay 5 saac hadda ay tahay 8 saac iyo 45 daqiiqo ka soo baxnay shirki aan galnay oo aan la galnay nimankan security-ga ama qaybta amniga u xilsaaran county-ga oo u weyn yahay ninka RC-ga oo regional commissioner-ga ah ilaa iyo county commissioner-ga iyo inta kale dhanba wax ka maqan ma jiro waxaan u cadaynay dhibkan ka dhacay Gaarisa shalayto horta waxaan rabaa intaan aan bilaabin wixii warkayga ahaa oo shir ku saabsan horta waxaan ka hormarin rabaa tacsiya anigu kulay waa la socotiin shalay ani iyo deputy-ga waxaan joognay Eldoret shalay markuu wixii u dhacay baan soo ordnay xalay dhan baan soo guureynay saakan meeshaan imaanay aan shirkan u qalqaalno aan u qayb galno marka horta awalan tacsiya aad u bilaaran baan u dirahayaa dhammaan reerarkii cidihii dadkii walaalaha ahaa ee shalayto culayskaas uu soo gaaray ee maartay caruurtoodii iyo ehelkoodii la xasuuqay taas waxaan kaloo raacin lahaa in dhibka inta dhacay oo shaa weynaaday kullayba shaki kuma jiro xanuun badan buu dhaafay ama uu keenay laakiin waxaan baryaynaa dadkeena intaan howlahan ka shaqeynayno oo aan amni aan raadinayno oo aan hawshan ku jirno in la iscafiyo oo wax tilaabo oo khalad aan la qaadin inaan waxba maartay tilaabooyin oo maartay argudasho aan la sameeyin ayaan waan codsanayna marka hadaan ku soo laabto qodobada maanta aan ku heshiinay shirkan waxaan horta anaga aan cadaynay oo aan u cadaynay nimankan security-ga in culayskan intan la eeg oo dhacay ayaga ay mas'uul ka yihiin oo dambigan ayaga ay qaadayeen maxaa meeshan anaga madax baan nahay waxay naga dalbaan waan siin karnaa oo waan siinaaba laakiin security ayaga ku shaqo leh marka horta number 1 waxaan ka codsanay dadkan zaalimiinta ah mujrimiinta ah oo ilaahay aan ka cabsanayn oo aakhira aan dan ka lahayn horta inay raadiyaan soo qabtaan waligeed lama arkin Gaarisa nama soo marin gaari intii la joojiya dadkii la ID card keena oo maartay goyn loo kala sooco dad la toogta waa wax aan wali Gaarisa soo maray weeyaan waa arrin cusub lagu bilaabatay oo aad u fool xun oo dulmi ah oo marka aniga waxaan dhahnay nimankan hawsha iniga iskala shaqadeena qabsada waxaan dhahnay sida ugu dhow waliba muddo isbuuc ka yar gudaheeda dadkaas raadiya haddaad waxday u baahdaan ama gaari ama waan siinaynaa laakiin hawshan dad la soo qabto oo raadiyo kaas yaaw shaqada qabsa horta waan ku heshiinay number 2 waxaan ku heshiinay hub oo khalad ah oo hub maxaa la dhahaa oo xaraan ah oo magaalada ka buux oo dadka iskala wareegayaan meeshan ma aha maxaan ku dhahaa torabora meeshan ma aha oo aan la garanayn magaaladan waa magaalo muslim waa magaalo dad wanaagsan ay degan yihiin waa magaalo dad ehel ay wada degan yihiin waa magaalo aan nabadgelyo ka rabno ma aha inay noqoto magaalo ma dad ay hub la wareegayaan oo dadka iska dilaayeen wax naqaana ma aha oo wax hadda soo galay weeyaan marka shaqadooda weeyaan in dadkan hubka wato ay soo qabtaan oo hubka maartay hubka khaladka ana ay magaalada ka bixiyaan ayaga shaqada ayaga u taala taas waan ku cadaynay way qarteen marka sida ugu dhow waxaan ku heshiinay in hubkan maartay aan saxda ahayn in magaalada laga bixiyo inta waxaan noo weheliyay anaga haddaan nahay county-ga oo dowladda county-ga aan nahay dhowr arrimo oo marka aan u arkaynay inay culaysyahan ay sabab u yihiin baan ka hadalnay anaga inoo taala waxaa ka mid dhagaxan la soo qodo jibsan loo aqaano oo meeshan laga soo qoto dib badan buu keenay culaysyo badan buu la imaaday horta asagoo dhulka naga dilay oo dhulka nabaad guur ku riday oo hoog iyo balay maartay dhulka ban dhulka ku dhaafay ayuu haddana wuxuu noo keenay cartels gypsum cartels buu noo keenay marka gypsum intii muddo oo aan u tashanayno waa marfuuq laga bilaabo intaan soo socoto wax gypsum oo meeshan ka baxay Gaarisa ma jiro wadada maartay bridge-ka Gaarisa wax dhaafay oo gaari oo gypsum wadba ma jirayba askartana waan ka ayagana siiyaan marka cidda gypsum ku jirto ama danka lahayd waxaan ku leenahay isdaalinin isniintan waxay ka bilowdo qalab qaado aarka hawlo danka raaso irsa raaso gypsum waa joojinay number 2 dhagaxan la guro asaga guryaha lagu dhiso oo meelaha laga soo guro isku dagaalama asaga meesha Gaarisa ahaato kuna kalima aha
meel alle meesha dhagax laga soo gurahayo oo ragaasha guryaha ku dhistaan ayadana inta muddo ah uga tashayna waan joojinay waxa la stone quarry maxaa yeelay wuxuu noqday asagana wuxuu la imaaday culays kale oo isku dagaalamahayba beecsharo wuxuu noqday waalamu noqdaba kuwa soo qodayin kuwa ka sii gadanayin meesha bay xiranayin meesha bay reebanayin markaas dil dagaalka imaanaya waa cartels dib u noqon ayadana waa joojinayna dhagax dambe oo la qoray inta muddo aan uga tashayna ayadana ma jirayso number 3 waxaan ku heshiinay muxuu ahaa plot dambe oo hadda maanta laga bilaabo ilaa aan uga tashanayno plot dambe oo warqad la siin allocation dambe u jirayba intaan ka tashanayno ilaa ma aata 2 bilood 3 bilood 4 bilood intaan ka gaarayno anaga aan waxaan aan kala ogaan doono plotyahan la isku waalanayo la isku dilay waa shay maartay oo ninkaas meel iska xirnayo uga garayo uga goonayo oo leeyahay kacwaan ka garay oo dadka isku laanayo ayada waan joojinay dhulkan waxa iska leh waa community land dowladda maarta mas'uulka ah yani custodianka ama mas'uuliyadda community land waxay saaran tahay dowladda laguma simaayo markaas ninkaas meel buu iska xirnayo markaas baa dadka isku dilaya ayadana waan joojinay wax la dhaho plot allocations ugu dambaystii ayadana waxaan joojinay wax la dhaho dhul la kala gadanayo oo la isku wareejinayo oo maartay la isku dilayo oo la iska xirnayo ayadana waan joojinay askar baan dalbanay in dhulalkan ay tashakadooda ayadana maal lagu soo xiro marka intaas ay sheegnay waxa inta noo weheliyay inaan ku heshiinay labadii police post station ee ku naso iyo burburis ay inaan boobsiino si degdeg aha oo waxay nooga baahan yihiin haday tahay guri aan u dhisno waa u dhisaynaa in ayagana meesha police ay geeyaan sida ugu dhow oo marka muxuu ahaa dhulalkan ay noqdaan dhulal maartay amniga la sugi karo insha Allah waxaan qabiil ma aha qabiil saastana ma jiraan waxaan waa criminals luqadda wal garanayso ma waxaan waa militia tuuga ah zaalimiin ah oo shifta oo ayaga ma aragtay raasanahay ma aragtay muxuu ahaa lacag arursadaan qabiil ma aha aduu ma maqal meel uu cawda ku shira ama Abdullah ku shira ama Awlan ku shira hal shaqa ma jirta waxaas waa nonsense waxaas loo keenin hana yeelina bas shaqa qabiil ma aha waxa taala niman zaalimiin ah oo dadka isku dir rabaan taas hal ogaado warkaas suuq sida ogaal insha Allah waxaan ka hadalay maanta arrimaha ka jiraan Gaaris aad baan uga xumaanay shalay wixii ka dhacay waxaan u tacsiyeenaynaa ummadii familiyalkii laga dhintay aad iyo aad baan uga xunnahay arrinta dhacday arrimihii aan ku heshiinay inay dawladda ay maartay inay ammaanka sugto doonto nimankii maartay arrintan ka dambeeyeen dilkan ka dambeeyeen inay daba kacaan oo soo qabtaan meel ay ka keenaanbo meel ay maraanbo inay maartay inta muddo yar oo gudaheeda inay nimankaasayto la soo qabto dadkaasayto dad naga mid ma aha isku qabiil ma nihiin isku diin ma nihiin isku jinsi ma nihiin waana ku heshiinay arrintan inay ahayn arrin qabiil laga dhigo ay noqoto arrin cadow kale oo maartay wadanka soo galay oo maartay raba inuu nagu soo duulay nabadgelyadeennana wax u dhimi rabo marka saasaan ku heshiinay maanta arrimaha kale aan ku heshiinay governorka sheegay waxaana filaynaa inay dawladda maartay arrimaha dhulka qaasatan oo maartay dhibkan keenay ayadana inay xal ka keento dhulka dawladda iska leh dawladda xal ka gaari arrintaas ay dhulka marka aniga waxaan ku darayaa ummadda maartay Soomaaliya maanta walaalaha isku xumaadeen inay iscaafiyaan inay isku samraan dilkaana dib ay keenin nabadgelyada ay sugaan sifa aan nabadyadii hore aan ku nooleen aan ku wala noolnaa waan isku umaanay anagoo dhan aan waxyaalahan ka hadalnay waxyaalaha dhibaato u keenay nabadgelyada Garissa County waa meel aan leenahay waa meel aan ku dhalanay meel aan ugu soconno ma jirto waa meel aad aan jecelnahay soo maxaan ka codsanaynaa tii labaad in dadweynaha reer Gaaris nabadgelis iyo maartay kal jecel dadka isku maartay ku wala noolaadaan qaasatan qoyskan ka umaaday Soomaaliland waxaan ka codsanay in maaragtay arrintan waa arrin laga tashaday waa arrin go'aan ka gaarnay waxaan iga codsanay dadka Soomaaliland meeshan ka umaaday ama qoyskan ka umaaday Gaaris oo dhan in maaragtay nabadgelis aan ku dadaalno waxyaalaha laga hadlay waxa kamid ah oo aad amaad aan ka codsanay governorka oo inta soo goor aan ka codsanay waa arrinta gypsumka waa dhibaatada weyn oo noo keentay meeshan nabadgelyada Garissa County aad buu ugu mahadsan yahay arrinta talaabada uu ka qaaday waa ku mahadsan tahay waana governor aan maxaa aaminsanahay 90%
haddii jibsam arrinteeda la joojiyey inay arrinta nabadgelyada si fiican u soo noqoni midda kale waa arrinta dhulka maxaan leenahay only kuna samo waa meel kasta oo Garissa County inay ma aragtay dhulashaas la bangeeyo la survey-geeyo plot allocation loo soo sida cadme loo suubiyo tii kale aan ka hadlayna insha Allah maxaa way arrintii police labadan police post oo station laga dhisayo burbur iyo kunaso ilaa qeyrhaas burburis ilaa qeyrhaas governor iyo entire people arrintaas waxaan rabnaa in si dhaqsimo loo dhameeyo waana ku heshiin arrintaas wixii dadkii dulme oo dadka walaalahayn oo ardayda oo yar oo 14 jirka dilina waxaan leenahay in dawladda 100% talaabo ka qaado waxyaalaha isku heshiina 100% anigoo leaderska maxaa soo baxday arrinta security-ga in ay 100% ka jifteen shaqadooda security apparatus-ka so arrintaas waa ku soo bixinay anigoo leaders maxaan leenahay security apparatus waxa ka cabsoonaysiin ma jirto nin kasta oo meeshan waa equal nobody is above law waxaan leenahay shaqadiina qabsada aniga leaders waa ni taageerayna waana ni garab taagana waqti kasta